qorshaha horumarinta korontada dalka oo ay fulinayso wasaaradda korontada iyo biyaha oo kaashanaysa bangiga adduunka ayaa soconaya muddo 5 sano ah waxaana loo qorsheeyay in 11 magaalo oo kamid ah Soomaaliya laga hirgeliyo koronto gelin lagu sameynayo goobaha waxbarashada iyo kuwa caafimaadka ee gobolada dalka iyo caasimadda. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa daafuray qorshaha horumarinta korontada dalka oo ay ku baxayso lacag dhan 150 milyan oo dollarka Mareykanka taasoo qayb ka ah qorshaha xukuumadda ee tiirka horumarinta arrimaha bulshada. Nolosha casriga ee dunida korontada waxay u tahay saldhig oo aan la'aanteed dhaqaale la hormari karin, waxbarasho iyo caafimaadna la tayeyn karin. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa xusay in laga maarmaan tahay in la helo tamar casri ah oo dadkeena siisa fursad ay dunida kula jaan qaadi karaan. Korontadu waa basiska nolosha casriga ee bani aadamka hadda kaligeed yani qof wax la qaban karo oo dhaqaaq oo la dhaqaajin karaa ma jiro haddii aan ayada aan la adeegsanin. Marka inaynu maanta halkaa marayno waa mahad Ilaahay, meel fiican baan maraynaa. markaad sector kasta aragto oo sectorada dawladda ka mid ah institutionska wuxuu soo gaaray meel macquul ah oo aan dhihi karno waan soo noqonay oo meel fiican baan maraynaa. ama electricity ay sal base ugu tahay nolosha dhaqaalaha gaar ahaan say base ugu tahay oo aan dhaqaalada la gaari karin, investment la sameyn karin haddii aan la helin koronto dee macquul ah, at least sicirkeedu macquul yahay haddaan la helin. Wasiirka Korontada iyo Biyaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Jaamac Taqal Cabaas ayaa sheegay in mashruucan uu yahay mid muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed. Horumarinta korontada dalka ee aan ugu magac darnay Elays. Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha waxay xoogga saartay diyaarinta shuruucda iyo habraacyada hanaanka maamulka suuqa korontada si loogu gogol xaaro horumarinta suuqa korontada iyo xal u helidda caqabadaha farsamo iyo kuwa dhaqaale ee hortaagan hoos u dhigista sicirka korontada iyo ballaarinta helitaanka adeega korontada. Ahmiyadda mashruuca ayaa ah yagleelidda nidaam koronto oo isku xiran, baahinta korontada dalka iyo in la dhimo qiimaha korontada. Xukuumadda dan qaran ayaa gacan uga shaqeynaysa horumarinta dalka, gacanta kalena dib u xareynta iyo sugidda amniga oo muddo kooban guulo ballaaran laga gaaray laguna xoreeyay deegaano badan oo cadowgu horay ugu dhibaatay jireen shacabkeena. Nabadgelyaduna waxay base ugu tahay wax oo dhanba gebigaba. Korontaan hirgeli karin waxba ma samaysmi karto ilaa aan nabadgelyada meel saarno. korontada damdamta ah way iska soconaysaa, dam walacada ku jirta, walac dam runtii aan xal helin oo wadankan aan nabadgelyadiisa meel la saarin. marka waxaan rajaynayaa mashaariicdu way soconaysaa, gacanna waxaan ku wadaynaa haddii la yiraahdo horumarinta iyo dhisidda dhaqaalaha iyo inaan reform sameyno. waa bidixda taas midigta waxaan ku qabanaynaa security-ga iyo in cadowga la dirirnaa midigta ku qabanayna. haddaydaan xataa kor u dhihi karin hoos u dhaho dagaalka socdaha la taageero, meel la fadhiya ma joogto, dagaal baan ku jirnaa. waxaan rabnaa inaan kulligeen u istaagno inaan dalkeena difaacno, qarannimadeena difaacno, sharafteena difaacno si waqti kooban inaan sidaan u soo noqono adduunka u soo gaarno oo mashaariicdan quruxda badan ay si fiican inoogu hirgasho. waxaan rabnaa inaan xurunaan u baahnay. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.